hogaamiyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu gaaray dalka Urdun isagoo la kulmaya boqorka wadankaasi kalena hadlaya xaaladda bariga dhexe waxa la isku soo qaadayaa arrimaha ugu dambeeya ee magaalada Gaza iyo waliba sida dalka Urdun looga gadi lahaa siyaasadda military ee madaxweyne Trump uu aaminsan yahay haddaba suuragal ma tahay Urdun in la hordhigo shuruudo kale oo waaweyn oo qasbi karaya in ay ogolaadaan shacabka magaalada Gaza inay halkaasi ka guuraan oo loo furo albaabada dalka Urdun warbixin taxliil oo arrimahaasi aan ku eegayo ayaan sidoo kale barnaamijkan ku falanqeyn doonaa saaxiibayaal waxaan sidoo kale eegi doonaa inta barnaamijkan aan wada joogno dalka Turkiga oo ka faa'iideysanaya sidii xal looga gaari lahaa dagaalada Ukraine iyo Ruushka Turkiga waxa uu diyaarinayaa saaxad lagu wada hadlo oo labada dhinac ay isugu yimaadaan kadib kulan 18 bishii February ama bishan February ka dhacay magaalada Ankara xilligaasi oo madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky uu soo gaaray magaaladaasi Ankara isla markaana shir jaraa'id uu la qabtay dhigaysa wadanka Turkiga xilli dhinaca kale dalka boqortooyada Sacuudiga uu ka soconayay kulankii Ruushka iyo sidoo kale u dhaxeeya dalka Mareykanka ee ragga hogaamiya soo dhawaada khiyaartayna la socota ay qadiyada badda madow ee Ruushka uu sida gaarka u danaynayo ayaan barnaamijkan ku faaqidi doonaa xiisada bariga dhexe waxa ay maraysaa meel xasaasi ah reer galbeedku waxay doonayaan in xal laga gaaro dhibaatada ka taagan halkaasi laakiin xalka mushkiladu waxay wajahayaan dhinaca ay jirto mooyaane dhinaca kale kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu miiska soo saaray mowqifkiisa ku aadan in magaalada Gaza guud ahaanba laga saaro shacabka Falastiiniyiinta ah sidoo kalena la joojiyo oo la tirtiro nidaamka Xamaas ee garwadeenka ka yihiin ee magaaladaasi ka talinaya 10 sano arrintani waxay dhalisay mid si weyn carabta ay uga hor yimaadaan iyadoo in ka badan 2 milyan oo Falastiiniyiin ay halkaasi ku nool yihiin inkastoo xabad joojin ay halkaasi ka socoto haddana waxaa loo geed xaarayaa mustaqbalka magaaladaasi cidda hogaamin doonta iyo ujeedooyinka laga damacsan yahay intaba oo isku sidkan hase yeeshee maanta magaalada Ammaan ee dalka Urdun waxa gaaray taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka hogaamiya kaasi oo la kulmaya dhigaysa wadankaasi ee dhinaca ciidamada hogaamiya iyo sidoo kale boqor Abdullah Thani waxaana ay ka wada hadli doonaan xaaladda bariga dhexe siyaasadda military ee madaxweyne Trump uu doonayo isla markaana uu rabo inuu ku wajaho bariga dhexe magaalada Gaza waxa laga yeelayo in albaabada dalka Urdun la furo iyo waliba shuruudo kale oo militariga Mareykanku ay wadaan lama oga sida go'aanada militariga Mareykanka halkaasi ay keenayaan loo aqbali karayo Urdun waxa uu ka mid yahay dalalka lacagaha ugu badan ka hela reer galbeedka ee Mareykanku ugu horeeyo waxaana dhaqaalahaasi lagu siiyaa shacabka Falastiiniyiinta ah ee dagaaladii hore uga dhacay Falastiin gaar ahaan daanta galbeed ku soo qaxay gudaha dhulkaasi Urdun ay leedahay Urdun waxay ka mid tahay dalalka carabta kuwooda ugu badan ee shacabka Falastiiniyiinta ay ku nool yihiin kadib markii laga soo qaatay dhulka ay ku noolaayeen Haifa iyo Asqalaan ay ka mid tahay iyo deegaano kale oo daanta galbeed laakiin hadda dadka dagaalada Jiniin iyo Dulkarim ayaa laga cabsi qabaa mar kale in halkaas ay ku qulqulaan xilli sidoo kale shacabka magaalada Gaza la rabo in macbar Karama ay ka gudbaan oo dhinaca Urdun ay aadaan haddii taliska Mareykanku sida ay hadda qorsheynayo ay waxay rabaan u hirgalaan waxa guuleysanaya siyaasadda Trump laakiin Abdullah bin Hussein hogaamiyaha dalka Urdun dadaal badan ayuu bixinaya oo carabta ayuu abaabulayay isagoo lahaa dhul iyo ninkii lahaa lama kala dhaqaajin karo taasi uu la jeeday in Falastiiniyiintu halkaasi muddo dheer ay sii joogi doonaan haddaba midna la tahay taliska dhexe ee Mareykanka qorshaha ay rabaan ee militariga inuu hirgeli karo qodobkaasi haddii aan halkaa uga gudbo dhinaca aan u imaado Turkiga madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa lagu tilmaamaa siyaasi cabqari ah xeel dheer ah fahansan isbedelada diblomaasiyadda adduunka dalka Ukraine iyo Ruushka ayuu hadda u qalqaalinaya saaxad ay ku wada hadlaan inay noqoto dalkiisa maadaama saddexdaasi dal ay guud ahaanba dhacaan badda madow oo ay ama Bahrul Aswad taasi
oo in badan ay si weyn isugu hayaan dalalkaasi waxa uu doonayaa Erdogan in iyadoo laga faa'iideysanayo isbedelada waaweyn ee adduunka ka dhacaya xaaladda Ruushka iyo Ukraine u dhaxaysa la gaarsiiyo miiska wada hadalka oo la furo janaalada diblomaasiyadda oo labada dhinac ay ku wada hadli karaan Ruushka ayaa ku dangeega dhabar weyn oo ah kan NATO laakiin waxa uu dhaqmayaa sidii dal kale oo madax bannaan isla markaana aan ku qadiyad iyo aragtiyad ahayn dalalka reer galbeedka ee NATO ay kula midaysan yihiin laga soo bilaabo sanadkii 2013 Ruushku aan iraahdee Turkigu waxa uu muujinayay danayntiisa arrimaha badda madow isla markaana siyaasad xasilan oo degan ay gobolkaasi ka dhalato 18 bishan February kulan ayaa ka dhacay magaalada Ankara kaas oo u dhaxeeyay Vladimir Zelensky iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan sida uu ku warramay telefishinka RT ee dalka Ruushka laga leeyahay kulankaasi ayaa waxa uu dhinac socday kii dawladda Sacuudiga ay martigelisay Ruushka iyo Mareykanku ay isugu yimaadeen taxliilayaasha arrimaha amniga iyo diblomaasiyadda adduunku waxay leeyihiin kulamada noocaana iyo isbedelada dhacaya marka la isku akhriyo maaha kuwa si caadi ah ku yimid waxaana Erdogan uu muujinayaa siyaasad furfuran oo ballaaran oo qaangaar ah isla markaana uu ku hormarinayo danaha dalka Turkiga haddii sida wax u qorsheynayo ay tahay isla markaana labada dhinac uu ku qanciyo in ay wada hadal ku yeeshaan magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga Ruushka iyo sidoo kale Ukraine tani waxay noqon karaysaa in Ruushka kubciisa uu aad u kobcinayo siyaasaddiisa diblomaasiyadda kana mid noqonayo wadamada caalamka jihayn doona taasi oo mar kale wadamada NATO u noqon karaysa kool ama fariin kicinaysa in Ruushka uu noqonayo mid kamid ah hoggaanka aan la loodin karin ee caalamka mustaqbalka dhow jihayn doona xilli Mareykanka iyo Shiinuhu ay isku muuqanayaan ayuu Ruushku noqonayaa awoodaha ugu horeeya adduunka